kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janalka gunta wararka waa 23 bisha 8 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan saakayna waxa kamid ah dowladda federaalka oo go'aan ka soo saartay labadii doorasho ee ka dhacday magaalada Kismaayo. maxaad ka taqaanaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir yaasa ku qasbay madaxweyne Farmaajo inuu magacaabo Cumar Finish oo kamid ah hogaamiye kooxeedyadii dalka. Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo wakiilo u dirsaday doorashada Jubbaland iyo sababtoo aan halkan idinkugu soo gudbin doono xaalad qasan iyo jahwareer ka taagan magaalada Kismaayo iyo maamul goboleedyada qaar oo dab ku sii shidaya. shirka dib u heshiisiinta Galmudug oo qarka u saaran inuu fashilmo iyo hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka oo fariin culus u diray madaxda Jubbaland. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa, markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa go'aan rasmi ah ka soo saartay labadii doorasho ee ka kala dhacay magaalada Kismaayo ee lagu doortay Axmed Madoobe iyo Cabdirashiid Xidig oo kamid ah golaha shacabka Soomaaliya. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan aqoonsaneen doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedyada Jubbaland. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed qoraal oo ay kaga hadlayso doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismaayo soo saartay taariikhdu markay ahayd 22 bishii 8 sanada 2019. wasaaradda waxay sheegteen iyadoo tixraacaysa warqadda ay sumadeedu tahay WAGF iyo /W/Eber6/2/19 ee soo baxday 6 bishii 7 sanada 2019 iyo habraaca wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee soo baxday 25 May 2019 iyo 24 July 2019. war-saxaafadeedka tirsigiisu yahay WAGF iyo /Eber7/2019 iyo war-saxaafadeed tirsigiisu yahay WAGF iyo /Eber7/2019 war-saxaafadeed soona baxay 17 Agoosto sanadka 2019 oo dhammaantood ku saabsanaa doorashada baarlamaanka, shirgudoonka iyo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay kana xun tahay dhacdooyinkii ka soo cusboonaaday magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ee ku saabsan caleemasaarka baalmarsan habraacyada doorashooyinka dastuurka iyo habraacyada dalka. wasaaradda waxa kale oo ay cadeysay inaanay aqoonsaneen natiijooyin kala duwan ee ka soo baxa magaalada Kismaayo, kuwaas oo wasaaradda ku sheegtay inay tilmaamayaan in shakhsiyaad kala duwan oo mid walba uu gaarkiisa u sheegtay inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa waxa kale oo ay war-saxaafadeed ku sheegtay inay aqoonsan karto oo kaliya doorashooyin wadar ogol oo lagu qanacsan yahay oo ay ka qayb qaateen dhammaan musharaxiinta baarlamaanka, shirgudoonka iyo madaxtooyada oo ku saleysan xor, xalaal, hufnaan, laguna wada kalsoonaan karo, kuna dhacda jawi nabdoon ayna goobjoog ka yihiin dowladda federaalka iyo beesha caalamka. warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa imaanaya xilli shalay magaalada Kismaayo ay ka dhacday laba doorasho oo lagu kala doortay laba madaxweyne oo iska soo horjeeda. Axmed Maxamed Islaam ayuu baarlamaanka Jubbaland u doortay inuu noqdo madaxweynaha Jubbaland iyadoo la sheegay in Axmed Madoobe ay guusha ku raacday wareegga koowaad uuna helay 56 cod. Axmed Madoobe ayaa isla markiiba loo dhaariyay xilka madaxweynaha cusub ee Jubbaland. dhinaca kalena qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka Jubbaland waxay iyaguna shaaca ka qaadeen inay madaxweynaha Jubbaland u doorteen Cabdirashiid Xidig oo isla shalay bay u dhaariyeen xilkaasi. hanaanka doorashada Jubbaland ayaa ahaa mid aad la isugu khilaafay, beesha caalamkuna waxay habraacyada isaya ka dalbadeen inay ka fogaadaan wax kastoo rabshado sababi kara. ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa isaguna dhaliilay sida loo waday qabanqaabada iyo hanaanka doorashada. warqad uu u diray gudoomiyaha guddiga doorashada ayuu toddobaadkii hore ku sheegay in waxyaabihii suurtagelin lahaa doorasho lagu wada qanacsan yahay aanay guddigu fulinin.
hase yeeshee gudoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland ayaa warqad ugu jawaabaya eedaha ku tilmaamay kuwa aanan jirin kagana codsadayn beesha caalamka ixtiraamto shuruudaha dowlad goboleedyada iyo tan federaalka ay ku shaqeynayaan isla markaana raali ka bixiyaan eedeymahaasi. Maamulka Jubbaland ayaa haatan wajahaya khilaaf siyaasadeedkii ugu cuslaa maadaama Jubbaland ay hadda ka jiraan laba madaxweyne oo iska soo horjeeda. dhinaca kalena maxaa ka taqaanaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir yaase ku qasbay madaxweyne Farmaajo inuu gudoomiye cusub u magacaabo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho u magacaabay Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Finish. Cumar Finish ayaa ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee sida weyn u soo caanbaxay xilligii hogaamiye kooxeedyadii ay ku dagaalami jireen magaalada Muqdisho. 2006 waxa uu ka mid ahaa 9 hogaamiye oo Muqdisho kaga dhawaaqay isbahaysiga la dagaalanka argagixisada isla markaana waxa uu taageero ka heli jiray dowladda Mareykanka. Cumar Maxamuud Finish waxaa loo magacaabay 2007 wasiirka diinta oo qaaftay xukuumadii uu hogaamin jiray Cali Maxamed Geedi. Waxa uu xildhibaan ka ahaa baarlamaankii 7aad, 8aad iyo 9aad ee Soomaaliya. Waxa uu ka mid ahaa dadkii sida weyn uga soo horjeeday dowladii uu hogaamin jiray Xasan Sheekh Maxamuud. geesta kalena Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif ayaa wakiilo waxay u dirsadeen doorashadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo. Haddaba maxay tahay sababta ay ugu dirsadeen wakiiladaasi, maxayse u soo qabteen? dad badan ayaa fahamsan sababta xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uga qayb galeen doorashada garab ka mid ah xoogagga isku haya hogaanka maamulka Jubbaland ee shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Xildhibaanada doorashada ka qayb galay marka koowaad waa mucaarad xasaanad leh oo faa'iidooyin badan u arka cid kasta oo ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya iyagoo ka eegaya danaha gaarka ee xisbiyada marka la gaaro doorashada Soomaaliya ee sanadka 2021. marka labaadna waxay wakiilo ka yihiin laba xisbi siyaasadeed oo hami weyn ka qaba inay wacdara ka dhigaan Soomaaliya waqtiga kala guurka ah maadaama Jubbaland ay ka mid tahay maamulada saameynta culus ku leh doorashada Soomaaliya sanadka 2020-2021. waxay ka kala socdeen xisbiyada ay kala hogaamiyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif, waxaana xildhibaanada Kismaayo gaaray ee labada gole ay xaqiijisay warbaahinta inay ka tirsan yihiin labadaas xisbi siyaasadeed halka qaar kalena ay yihiin xildhibaano deegaan laga soo doortay oo doonaya inay kursiga ku soo laabtaan doorashada soo socota ee Soomaaliya. tusaale xildhibaan Axmed Macalin Fiqi waa xogayaha xisbiga UPD ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halka xildhibaan Yuusuf Xuseen Gamaadiid uu yahay xubnaha ugu sareeya xisbiga Himilo Qaran iyo aasaasiyaasha xisbigaasi. waxay labada xisbi haystaan ballanqaadi ah inay taageero weyn ka heli doonaan Jubbaland markii la gaaro doorashada Soomaaliya, halka xildhibaanada kale ay doonayaan inay difaacaan kursigooda waqtiga kala guurka ee Soomaaliya. xaalad qasan iyo jahwareer ayaa ka taagan magaalada Kismaayo iyadoo maamul goboleedyada qaar ay dab ku sii shidayaan. war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada maamulka Jubbaland ayaa looga hadlay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee lagu doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa hambalyo u diray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo mar kale loo doortay inuu maamulkaasi Jubbaland hogaamiyo. qoraal ka soo baxay Dani ayaa loogu baaqay Axmed Madoobe inuu ka shaqeeyo in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka gudaha Jubbaland. sidoo kalena Dani waxa uu ku baaqay in dowladda federaalka iyo Jubbaland wada hadal ku dhameeyaan khilaafka doorashada ka dhashay. dhinaca kalena shirka dib u heshiisiinta maamulka Galmudug ayaa qarka u saaran inuu fashilmo. wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in shirka dib u heshiisiinta maamulka Galmudug uu qarka u saaran yahay inuu fashilmo. qaar ka mid ah ergooyinkii tagay magaalada Dhuusamareeb ayaa dib ugu laabtay meelihii ay ka kala yimaadeen kadib markii ay sheegeen inaysan muuqan qabanqaabada dadaalada lagu doonayay inuu shirka furmo. beelaha dega Galmudug qaarkood oo shirka uga socda magaalada Hobyo ayaa dhankooda diiday ka qaybgalka shirka ilaa la soo afjaro shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada Hobyo. waxaa sidoo kale khilaaf uu ka taagan yahay cidda maamulaysa ammaanka xarunta dib u heshiisiinta lagu qabanayo dhawaan ay ku dagaalameen ciidamo boolis iyo nabad sugid oo kala taageersan dowladda federaalka iyo ahlu sunna. wasiiro ka tirsan Galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in shirka uu qarka u saaran yahay inuu baaqdo markii saddexaad maadaama guddiga aysan ku guuleysan soo dhamaystirka beelaha ka qaybgalaya shirkaasi.
ugu dambeyntiina hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka ayaa fariin culus u diray madaxda Jubbaland. waxaa isa soo taraya dadka u hambalyeynaya madaxweynaha Jubbaland ee dib loo doortay Axmed Maxamed Islaam, waxaana hambalye iyo baaq u diray gudoomiyihii hore gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed. qoraal uu Thaabit ku qoray bartiisa Facebook ayuu ugu hambalyeeyay madaxweynaha Jubbaland ee dib loo doortay Axmed Madoobe, isagoo u rajeeyay inuu Alla u fududeeyo xilka lagu aaminay ee loo doortay. waxaan hambalye u dirayaa madaxweynaha la doortay ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, waxaan Alla uga baryayaa in xilka ummadda ee aaminaada u fududeeyo. sidoo kale waxa uu hambalyeynaya musharaxiinta kale, si gaar ah musharax Canab Maxamed Daahir oo natiijo wanaagsan ka keentay, tusaale ku dayasho mudanna u horseeday haweenka Soomaaliyeed, ayuu yiri Thaabit Cabdi. sidoo kale waxa uu ammaan u jeediyay guddiga doorashooyinka Jubbaland, hay'adaha amniga Jubbaland, Amisom, waxaana uu madaxweyne Axmed Madoobe ugu baaqay inuu noqdo mid isku keena madax iyo muxaafad intaba. madaxweyne Axmed waxaan kula dardaarmayaa inuusan noqon guuleysto balse noqdo hogaamiye isu wada keena mucaarad iyo muxaafadba, maadaama labaduba ay ka wada tirsan yihiin magaca Jubbaland. sidoo kale inta samaha jecel waxa ay ka rajeynayaan inaad nabadoonnimadii lagugu yaqiinay wax ku xiirisid, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Axmed Madoobe. dadka isugu jira siyaasiyiin, xildhibaano, mas'uuliyiin xilal haya iyo kuwa aan bahayn intaba ayaa ugu hambalyeeyay dib u doorashada madaxweynaha Jubbaland ee shalay lagu doortay magaalada Kismaayo. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka Gunta Wararka waa naga intaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino. waana mahadsantihiin.